bixinta asxaabta qaranka ee jamhuuriyadda gooni-sutaageeda ku dhawaaqday ee Somaliland ayaa saddexda xisbi qaran ee kala ah kulmiye wadani iyo ucid ku wargeliyey in maanta oo ay tahay 26 Diseembar ku eg tahay muddadii dhaqangalka liisimada xisbiyadaas ha yeeshee waxaa go-aanka guddiga gaashaanka u daruuray xisbiga mucaaradka ah ee ucid oo sheegay inaanay bixin doonin lacagaha canshuurta maadaama sida ay sheegeen aanan bishan la siin lacagtii ay qaadan jireen ee miisaaniyadda ku jirtay gudoomiyaha xisbigaasi Faysal Cali Waraabe ayaa igu waramay khadka telefoonka wuxuuna marka hore ku bilaabayaa sida ay u arkaan warkan ka soo baxay guddiga diiwaangelinta ee ururada. bismillaahi raxmaani raxiim. horta guddidaasi meel ka soo gashay arrinta asxaabta ma jirto marka waxaan u arkaa dee wax loo yeedhiyo la yidhi saa qora uu madaxweynuhu musabixi ku yidhi laakiin waxaan aragnaa inay sharci darro tahay. asxaabtu sharci ku fadhidaa sharciga ay ku fadhidaa waxa weeye waxay waayi karaan uun maqaamkooda iyoo doorasho gala oo doorashada waaya oo xusbi kale bedelo ayuunbaa horta ku waayi karaa. waa sidaa isba u fadhiya waqtigiisi dhammaaday haddana wax wadankii magacii madaxweynaha uli sito waa sidaa guurtida u fadhido waqtigooda dhammaaday 20 sano ka hor way u fadhiyaan. waa sida u fadhiyeen deegaanku iyagoo wadaqaarigooda dhammaaday ay 8 sano iska fadhiyeen. marka wax anaga gaar ah naga dhigaya oo sharci ah inaanu ururo noqono ma jirto. Faysal anaga ma hubno in arrintan madaxweynaha uu ka dambeeyey soo xitaa xisbigiisii kulmiye meesha kuma jiro oo kama mid aha xisbiyada la sheegay in liisankoodu dhacayo. wuxuu xisbiyadiisa wuxuu leeyahay isaga maanta xusbi ah keligiibaa xusbi ah keligiibaa commissionkii ah oo aday argtiyey commissionkii diiwaangelinta go-aankay soo saari lahaayeen ee diiwaangelinta isagaa dikrata ku soo saaray isagiibaa magaranaysa maxkamadii sare ah wixii oo dhan isaga isku marmaray wax maanta institutiona oo ninkaa ka madax banaani ma jiro. laakiin Faysal oo dhowr jeer aad madaxweynaha ku soo celcelisay inuu arrintan ka dambeeyey muuse ma aha cidda go-aankan gaartay ee warkan wuxuu ka yimid guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranka. cidda go-aanka gaartay waa guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta. meel ay ka soo gasho sharcigeedu ku yaalo way gaaraysaa ma jirto. waa u yeedhiyey shalayta isagoo wuxuu lahaa ururadu waxay noqonayaan asxaab ku meel gaana ay ahaa khudbadiisu u dambaysay. marka waxa weeye adeer dalkan muuse wuxuu doonayaa inuu dal u samayso waxaan u wadaana wax u suurtageli maaye ee waxaan ka baqay inuu dalka naga burburiyo. ilaah waxaan ka baraya subxaana wa tacaala inuu dalka naga badbaadiyo. arrimahaas aad sheegaysid Faysal oo aday ku gaar tahay anaga warkaas ma hubno. arrintan ma kadis bay idinku noqotay mise waad sii ogeydeen in laysinkii meede horta in wax kasta guurta waqtigii dhammaada waa ogeen. madaxweynaha waqtigiisa waa dhammaaday oo sheenay waxa ka dhamay 13 November. laakiin guurtida u kordhisay madaxweynaha adeer guurta may kordhin. guurta waxa kordhiyay wixii la isku raaco ee 3 xisbi isku raaceen road map ayaa sharciyaya maaha ana shan korsay adna laba ku kordhiyay meel adduunka dhacda horan oo meedicina markaas suurta gali mayse. talaabooyinkan uu wadaa muuse bixi waa talaabooyin wixii aan ku soo tacabnay loo dhintay loo gaajooday uu ku baabiinayo. ilaahay baan ka barayna subxaana wa tacaala ilaahay uu naga badbaadiya. waxaad diidan tahay arrintan ka timid guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda marka ma ogolaan lahayd haddii commissionku ahaan lahaa cidda go-aankan gaartay. adan ma shaqada waa la kala leeyahay. commission doorasho bay ilaaliyaan doorasho lagu heshiiyay oo sharciga ayay implement gareeyaan. kuwaasi waxay shaqo u leeyihiin ururada isfijireeyay kuwii u diyaar garoobay inay u tartamaan asxaab ayay soo saareen. way soo saareen 19 waxbay soo saareen way gudbiyeen. marka anu waxma diidan anu sharci baan ilaalinaa. aan sharci ahayn waxaan leenahay waxa sharci ma haban leenahay. waxaan waan jeclay maaha waa wixii sharcigu sheegayaan ku sheegay. waxaad ii sheegtaa bishan ma la idin siiyey lacagtii miisaaniyadda idinkugu jirtay ee aad qaadan jirteen. maanu qaadan. labada xusbi kale hore u sii casaysteen November anagu maanu qaadan. iyagana tii maanta loo soo diiday magaalada kulli wadani tii December loo soo diiday. waa sharci darro taasna waa sharci darro. lacagta waxay noogu jirtaa miisaaniyadda waanu qaadanaa intaan asxaab nahay xusubnada waayino doorasho ku waayino waanu qaadanaa. hadduu joojiyey isna waan kuu sheegayaaye cashuur dalkayga ka qaadi maayo deegaankayga
iyo dadkaygana taageersan shilin bixin maayo in waa cashuurteeda wax lagu xukumaya wax lana siiya jeebka in muusan in bixin ma waxa weeye cashuurtii dalka miisaaniyad bay ku jirtaa nooma diidi karo marka talaabooyinkan wadaadho waxa weeye waa iskeensi kaasi waxa uu ahaa injineer Faysal Cali Waraabe